بسم الله الرحمن الرحيم maanta xarunta dawladda galmudug cadaado waxa ka dhacay shirkaas oo isugu yimaada golaha wasiirada madaxweyne ku-xigeenka uu gudoominayay waxa looga hadlay in arrimaha dib u heshiisiinta ee galmudug qorshaha dib u heshiisiinta sanadka 2017 ilaa 2019 looga hadlay waxyaalaha la isla gaaro ugu muhiimsan waxa kamid ahaa in sida uu dhaqsaha badan wada hadal loola furo qaybaha u baahan wada hadalka sida Ahlusunna wal Jamaaca oo kale taas oo mataqaanaa guddi official ah insha Allah loo saari doono sidoo kalena waxa weeye meelaha kaleeto oo ay kamid tahay magaalada Gaalkacyo iyadana mataqaanaa isaas oo kaleeto in loo diyaar garoobo wada hadal lala galo Puntland lala furo waxa kale oo laga hadlay in bulshada meelaha ay ka jiraan khilaafyada ay ka jiraan si dhab ah in loo galo ayaa looga wada hadlay sadaka warqabno galmudug waxay aad iyo aad ugu heelan tahay dib u heshiis ka dhacda geeyigan dhammaan gobolada dhexe iyo maamulada dariska la marka waxa weeye waxaan rajo fiican ka qabnaa hadii Ilaahay idmo in aan ku guuleysan doono barnaamijkaas waxaan rabnaa marka cid kasta oo galmudug ka tirsan iyo cid kasta oo maaragtay galmudug gacan ku leh inaan barnaamijkaas insha Allah anaga dhanaan u wada istaagno dib u heshiisiinta iyo nabadeynta Soomaaliya si horumar iyo loogu gudbo muxuu ahaa nabad ka dhacda dhammaan geeyiga Soomaaliya waxaan rajaynaynaa insha Allah sida ugu dhaqsaha badan leh in la helo jawi aan abuurno nabadeed oo bulshada galmudug dhammaantood ay mataqaanaa gacmaha isku qabsan doonaan waxaan sidoo kale u diyaar garoobaynaa insha Allah inaan ka qayb qaadano haddaan galmudug nahay shirka wada hadalka ama wada xaajoodka hanaanka qaran oo dhawaan ka dhici doona magaalada Muqdisho hadii la yiraahdo marka waxaan soo dhaweynaynaa wax kasta oo nabad ay ku imaanayso waxaan halkan ugu baaqaynaa golaha wasiirada isla garteen in dhammaan meelaha ay ka jiraan khilaafyada oo dhammaan gacnaha la isqabsado si qaas ah waxaan ugu baaqaynaa Ahlusunna wal Jamaaca iyo maamulka dariska Puntland inaan dhammaanteen nabad u wada istaagno wax walbana aan ku dhamayno wada hadal